Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan qaadanaynaa modeling xisaabta la yiraahdo waa xisaab caan ah oo ay isticmaalaan hay'adaha caafimaadka iyo wixii la mid ah si ay ugu isticmaalaan xisaabta cudurrada faafay iyo wixii la mid ah. Marka insha Allah taala waa introduction oo qeexid ah. Marka modeling waxay yiraahdaan när vi beskriver en verklighetssituation med matematiska gör vi en matematiska modell. Markii wax waaqic ah oo xaqiiqa oo dhacayo oo socdo markaas la xisaabinayo waaye xisaabtan la isticmaalaa. Marka tusaale aan halkan ku haysanaa example wax waaqici baan tusaale ku qaadanaa sida gaariyaasha iyo wixii la mid. Marka waxaan leenahay example om vi är ute och kör bil med den konstant hastigheten 100 kilometer i timmen kan vi beskriva hur sträckan vi har kört efter tiden med funktion. Marka xisaabtan badanaa funktion baa lagu xisaabiyaa oo marka funktion la soo saaro iyo markaasi coordinator iyo waxaas lagu xisaabiyaa. Marka waxaan leenahay meesha si aan ugu soo saarno function ama funktion waxaan xisaabinaynaa sträckan ama intuu baabuurka goynayo saacadii. Marka funktion si loo soo saaro waxaad leedahay funktion waxaan s oo sträckahaas ah waxay la mid tahay 100 oo 100 waa xawaarihii loogu talagalay wadadaas lagu dhuftay tiden tidkii intaa wada. Marka functionkii sidan ayuu kusoo baxayaa s equal t. Marka functionkaas s tan waxay la mid tahay sträcka ta'dana waxay la mid tahay tiden. Marka introduction intaas ayuu ku saabsanaa maanta. Modeling waa xisaab caan ah. Marka insha Allah taala aad baa u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.